hadda shukaansi oo dhan hadda wuxuu isugu biyo shubtay maalin wax habeen kulmaya gabadha tiraada maqaayad hible igu ima waxay ku leedahay mad af duban rabtaa marka hadda waxa weeye maalinkii waa la isgaadgaadaa oo shukaansigu socdaa dumarkii micnaha aan la hasaabi jirnay mise aan shaqaysan jirnay hadda kale lama aaminaan mana micnaha waxa gabar kastoo Allah shan camal kuma waa aaminayso camal waxa iska dhicin af duban soo galay marka hore waxaan dib ka qabnaa camal waxa jirtay nin yiraahdo Cabdi Ajun oo micnaha dumarka micnaha ay rag ka bixin haddana waxa soo baxa camal afdub sheekadaas habeenkii saas u dhacday gabar xiriir inaga dhaxeeyay baa intaan la hadlo oo wareystay bal horta ma nabad qabtaa oo ma ka waran arrimihii baan wareystay and then markaasaan ku dhahay dhowr maalin oo vacation aadno then xagee bay dhahday waxaan dhahay Nakuru meelahaas aadaynaa it's a bit better meelaha kale oo green oo qabow waxaan ku dhahay Soomaali badan ma joogto then saaxiibta wallahi ina bay ku sheegay saaxiib telefoonka ugu dambeysay ku dhahdani oo de horta hool baa ku jira aan kugu soo celiyo then after that waxa wax dambo qoftii de waxa hataa ina hadda aanu marmar raadimo wallahi saaca aan kula hadlayo isla ma hadalno oo ima soo raadinin so waxa waaye afduubkan iyo kidnappingkan wuxuu keenay xaaladda situation aan fiicneen oo dadkii gabdhihii inay Soomaalida ka cararaan waliba xitaa dating yani inuu yaraada isla over waxa waaye 65% hadda uu maraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waxa waaye dumaaye siqda dhex marqaan hele minja ruuge waxaan rabaa inaan ka hadlo amni darrada waxa weeye baryahan dambe isli ka jirtay iyo dhibaatooyinka soo kordhay wallahi niyahow saaxiib week dhan baa waxa weeye aan guryaha ka soo bixi weyn oo qolalka ku xidhnayn laakiin waxa weeye muxuu ahaa ammaanka hadda uu soo hagaagay askar badan magaalada lagu soo daadiyay marka hadda ammaankeedu aad buu u fiican yahay waan nafisnay laakiin maalmihii hore mar baan suuqa ka go'nay oo habeen socodka waxa weeye aan joojinay annagoo raga laakiin hadda ammaankeedu magaalada aad buu u soo hagaagayaa maadaama waxa weeye MB-ga magaalada Kamakunji ama Islii askar badan uu ku soo daadiyay aad baan uga mahadcelinaynaa MB-ga dadaalka uu ugu jiro in Islii ay nabadeedii hore waxa weeye lagu soo celiyo waayo waxaan ognahay Islii waa xaafadda ugu nabdoon Nairobi xataa MB-gu wuxuu sheegay xaafada aanan anu maleynaynin in waxa weeye afduubkii dhac uu ka jiro oo dadka madaxda ay degan yihiin marka ammaankeedu baryahan magaalada aad buu u wanaagsan yahay nabad baan ku seexanaa nabad baan ku soo toosnaa ganacsigu si fiican buu u socdaa isdhexgalkii bulshada wuu kordhay ma fahantay waxa weeye ninkii habeenka guurayo waxa weeye marqaankiisu wataa oo uu qayilaa ninkii waxa weeye shukaansigu aadaa gabadhii kool aadaysa koolkeeda aadaa magaaladu waa happy ganacsigu waxa weeye aad buu u socdaa isku socodka gaadiidku uu furan yahay maasha Allah wallahi billahi weegan waan ka raysanay intii gabadhii la soo daayay oo waxa weeye la soo qabqabtay nimankii gaangiska ahaa waan ka raysanay muxuu ahaayay cabsidii faraha badnayd alxamdulillah haduu Ilaahay noogu wadayo kayskii naga dhaxay wuxuu ahaa gabadhii dukaanka ku lahayd suuqan Kamakunji meel la dhaha dukaanka ku lahayd kayskaas baa naga dhaxay waayo waxay soo sawireen gabadhii oo alcohol waxa weeye lagu daadiyay jirkeeda oo jirka googaayo bishimihii dildilaaceen kayskaas baa aad nooga naxiyay oo aan ka yaabnay wallahi annaga hadda dhalinyarta dhibaata baan kala kulanay waayo gabadha la ballantaba ama kool aad la gelahaydba waxay ku leedahay walaalo kuma iman karaa ama adii imow marka xataa maqaayad inaad kula kulanta gabdhihii ma ogola annagii Soomaalida ahaa wiilashii way naga shakiyeen marka xoogaa caqabada shukaansina way nala soo diristay haddaan nahay dhalinta Islii hadda shukaansi oo dhan hadda wuxuu isugu biyo shubtay maalin wax habeen kulmaya gabadha tiraada maqaayad hible igu ima waxay ku leedahay mad af duban rabtaa marka hadda waxa weeye maalinkii waa la isgaadgaadaa oo shukaansigu socdaa maasha Allah waa hadda waxa weeye maasha Allah wallahi waa la fiican gabdhihiina waxa weeye gabdhihii badnaa ee wadooyinka jaamka ka dhigayna waa laga raystay oo waxa weeye gabdhihii guryahooda ay ku ekaadeen diintu waxay tiri leen moogta guryihiina jooga haweenow marka gabdhihii faraha badnaa ee wadooyinka yaacay habeenkii iyagoo laftooda waxa weeye waa xogaa wadooyinkii baa waxa weeye noo waasacay jaamka waan ka raysan wallahi horta aad baa u mahadsan tahay وانا ku faraxsan inaan barnaamijka ka qayb qaato waxa jirta horta afduub baa jiray laakiin hadda jabiga iyo magaalada aad buu macna u leedan yahay walow laakiin macna ay dhamaatay in la saamino dareenkiina siduu yahay hadda markii soo afjaray kiisaska afduubka wallahi dareenkana aad buu wanaagsan yahay laakiin waxa way dhibka aan qabno la yaraanahay dumarkii macna aan la hasaabi jirnay mise aan shaqaysan jirnay hadda kale lama aaminaan mana macna gabar kastoo Allah shan camal kuma waa aaminayso camal waxa iska dhicin afduubna soo galay
marka hore waxaan dhib ka qabnaa camal waxaa jirtay nin la yidhaahdo cabdi cajuun oo micnaha dumarka micnaha ay raggii ay ka aanbixeen haddana waxaa soo baxa camal afduub shukaansiga micnaha xaafadda islii nagu yaraaday sababtoo ah qof micnaha laba qof isma waa aaminayso camal haddii aan ragga annahay waan cabsanaa dumarkana waa naga sii daran yihiinbu hase yeeshee xalay waxaan arkayay Soomaali fara badan oo banaanka ku dabaaldegayso mis leedahay hataa Soomaalida way ku aamin qabaan amniga xaafadda islii si haddii loo fiiriyo haa okay bal ka waran amniga xaafadda islii kadib markii la soo afjaray kiisaska afduubka wallaahi amniga xaafadda islii wuu iska fiican yahay wax afduub ahoo jirina ma jirin waxaan siyaasad unbay ahayd arrintiina hadda dee iska soo gabagabooday wax hadda afduub ahoo cusub oo aan ognahayna ma jiro amniga xaafadda isliina dee sidii hore u wanaagsanaa haddana u wanaagsan yahay bal ka waran hadda ma jira xasaabo la sameeyo xilliyada habeenkii wallaahi anigu nin waayeela waan ahay haasaabo iyo waqtigiisa waan kasoo gudbay laakiin dadka dhalinyarta haasaabo unbaad kulley la weydiin arrinta ayada adigina haddaad tahay nin weyn sideed u aragtaa xaalka habeenkii xaafadda islii maadaama aad soo baxdo niyow xaalka xaafadda islii waa iska nabadgelyo cishaha si fiican baan u aadnaa haddee cishaha ka dambena dee kolley wixii banaanka jooga waa un dhalinyar iyagu unbaana dee xaalkooda iyo wixigooda la weydiinaya waan u malinaya amniga xaafadda islii aad buu u fiican yahay sidii markii hore u fiicnaa haddana u fiican yahay amniga isliina rag baa gacanta ku haya marka raggii hore gacanta ku haya haddana gacanta ugu jira marka aad buu meel fiican buu marayaa waxaa jirtay kiisas fara badan oo afduub ah hadda waa lasoo afjaray kiisaskii dhalinyar ahaan sidee dareemaysid wallaahi dhalinyar ahaan xaalku iska fiican yahay inkastoo sidii hore sayar ahayn aad moodo maaragtay xoogaa tashushuusha maaragtay ku yar jiro madmadow ah oon sidii hore u ahayn laakiin aad buu u fiican yahay aad buuna u wacan yahay markii gabdhihii la sheegayay lasoo maaragtay xaalkoodii la dhameeyey xisadeen halkii bay ku qowday marka wax hadda lasii wadwado oo lasii buunbuunayo ma wajito hasaawuhu dee kolley nin kastaba dee naftiisa isagoo ba ka warrabee hasaabaha dee kolley waxaan umalayn sidii hore inuu yahay un adiga ahaan hadda markaad hasaabo aadayso maalin miyaa aadaa mise habeen bay aada ani maba hasaabigu aniga waa hasaabo kuma jiri walaalow xaafadda islii horta waa xaafad weyn iskama warhayso taada kale waana meel ganacsi mar si loo fiiriyo afduubkaas wuu jiray oo ciyaalkii iskuulka aaday gabdhihiin loo cabsado xitaa raggii darawalada meelaha qaar oo ana hadda xaafadda islii kuma badni laakiin waa bays oo aan laga maarmin cabsi baa jirtay in xitaa dad qaar oo darawaliin madow oo soomaalida qaar u shaqeeyo gawaari ciyaalka ugu geeyo iyo xitaa waxaa macquul noqotay in shaqadoodii qiilqiil gasho oo is-aaminaadii yaraatay balse hadda amnigeeda waa uu wanaagsan yahay walow dee ani ahaan marka ka hadlay gabdhaha aba ku dhaleecay in ragga soomaalida ay kaga aaminaan kuwa madowga aad arkaysid marka mootada saaran yihiin in ninkii gacmaha sida filankii Titanic ma la dhihi jiray camal xabadka in gacanta ka geliso laakiin nin Soomaali hadduu sidaa dhaho yani dhehso qayli ama dagaal meeshu ka bilaabanayo wallahi it is a bit better than before laakiin hadda masha Allah we are feeling good wax dhib ma jiro xaafadda way shidan tahay anytime ma laga bixi karaa odoo kaafiyo haddana uu saaran yahay laakiin alxamdulillah waa ilaah kaga mahadcelinaynaa ragga gacanta amniga ku hayo iyo mas-uuliyiinta u helan ee dadka deegaanka islii madaxda u ah oo iyagu had iyo goor yani relationship lale bulshadii ay madaxda u ahaayeen iyo waxyaabaha ka soconaya xaafadda inay ogaadaan